Sheekadeena maanta waxay ku saabsantay dacwadii iyo cunabkii geedka ku yaalay wixii kala qabsaday. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa dacwo aad u gaajaysan oo raadinaysa waxay cunto ayaa waxay ku soo baxday beer yar oo ku dhex yaalo geed ay ka laalaado roob cinabi. Geedkii ayay soo hoos taagtay waxaana isku dayday inay soo goosato rocobtii cinabka ahayd. Waa ay ku boodday laakiinse way gaari weyday. Mar labaad ayay isku dayday waxaana ku boodday geedkii si ay u soo goosato rocobka cinabka ah. Laakiin nasiib xumo haddana may gaadhin. Markii in badan ay ku celcelinaysay si ay u gaadho cinabkaasi geedka ka soo laalaada ayaa waxay go'aansatay markay ku daashay inay iska joojiso. Markii ay ku fashilantay gaadhista cinabkaasi ayay iskaga tagtay meeshii iyadoo leh cinabkaasi waa dhanaan mana doonayo inaan cuno. laakiin haddii gaadhi lahayd oo ay soo goosan lahayd macaan ayuu u ahaan lahaa oo may tidhaahdeen hadalkani. Haddaba daawade dulucda sheekadeennan ayaa ah mahmahdii Soomaaliyeed ee ahayd hunguri wad ma arko.